عقب كان إنكسروا قارين هاي هذا نوع ليه أهمية وين مركان كان لينورك وحلو تعريفية مركقار الأرض لله وحكى كل يراها الأرض لمن أحياها وحكى لتوان بحنا ملك الدولة له عندي سياسة أيامه مركا قضبك ردت وهذا المصر كردي وأقول لكم ملك جمهورية الفدرالية الصومالية وحاول يجير أوله شعبك جمهورية الصومالية وحان أدعي لها وذكرت أيام خلاف لها وحاله شعب جمهورية الفدرالية الصومالية وحان مريسة دولة قلت أصلا قدري لها فقرد أفراد وأيضا وحيالا للسوكر ليي من دا كمد isla qodobkan qoraalkeedan wax ka toosinaya haddii bay ii suurto gasho waxay hadda u qoran tahay dhulka waxaa lagu haysan karaa loo adeegsan karaa ama loo adeegsanayaa loona maamulayaa si cadaalad ah oo u agaasiman wax soo saarid oo dhulku siday u qoran tahay isaga ay xamili karo waxaan dhihi lahaa meeshaas waxa soo saarid ereyaan ku kordhin lahaa iyo manaafacaadsi ama ka faa'iidaysi waxa la yidhaahdaba uuda ayaan tiri lahaa dhulkunu xamili karo faqradda shanaad dastuurkii horena ka ahayd saddexaad waxaan toosin baan ku samayn lahaa hadda waxay u qoran tahay xukuumadda federaalka iyadoo la tashanaysa dowlad goboleedyada iyo ciddii kale ee ay khusayso waxaan dhihi lahaa ciddii kale ay khusayso oo ay waxay dejinaysaa siyaasadda dhulka ee qaran waxaan dhihi lahaa siyaasad qaran ee lagu horumarinayo maamulka dhulka waxaan tiri lahaa qaranka iyo dhulkan soo kala horumarin lahaa marka taasna saasaan dhihi lahaa si joogto ahna dib u eegis loogu sameeyo si joogto ah ma dhihi lahayn waxaan dhihi lahaa si mar kastoo loo baahdo dib u eegis loogu sameeyo si joogto ah waxa weeyaan ma yeerliba ma 5 sano marka waxa weeyaan markii loo baahdo si markii loo baahdo dib u eegis loogu sameeyo faqradda sanad dhamaadkeeda dhowr arrintii waan iska qaatay maadaama doctor Mahdi noo fasiray faqraddaas markii la joogo in hal degdeg ah oo maangal ah laga gaaro haddiiba khilaafaadka ku saabsan dhulka iyo milkiyadda marka haddiibadaas waa zaa'id oo meesha kuma jirto faqradda f waxba kama qabo dhulka horta waa noo qaybsan yahayo dhul degaan dhul warshadeed dhul mashaariic dhul daaqsin dhul beereed waxyaala saasoo kaleeto u qaybsan yahay isagoo dhan isku xukun ma qaadan karo marka in la xadido inta la ekaan karo dhulka qofka ama shirkad ay milkiyad ahaan u yeelan karto
in la xadido marka waxa weeyaan mashaariicdu ay kala duwan yihiin warshadaha waa kala baaxad weyn yihiin waxa weeye marka diraasadda ay la yimaadaan qolada shirkadahaas ah ayaa la xadidi karaa oo guud ahaan haddii la ogol yahay warshadii in dhul loo bixiyo marka waxay u baahan tahay markaas la samayn karaa xadidaad oo dastuuri ah in loo sameeyo ma qabo NG marka la joogo waxay u qoran tahay in la nidaamiyo dhaqdhaqaaqa suuqa ka ganacsiga dhulka si loo ilaaliyo xuquuqda milkiilayaasha dhulka yar baa la yiri marka waxaan dhihi lahaa meeshaas in xeer lagu soo saaro nidaaminta dhaqdhaqaaqa ka ganacsiga dhulka in xeer lagu soo saaro nidaaminta dhaqdhaqaaqa suuqa ka ganacsiga dhulka hore u soo soco si loo ilaaliyo xuquuqda milkiilayaasha dhulka waa in la yiraahdo dhulka yaryar dhulka yar kaliya ma dhulka yaryar way taasna saasan filay inay ku habboon tahay faqradda lixaad dowlad goboleedyada waxay dejinayaan siyaasad dhuleed oo heerkooda ah waxay dejin karaan in la yiraahdo dejinayaanta waxay dejin karaan oo haddayaan u baahanin inaan lagu qasbin hore u soo soco baaxadda dhulka hakad muddada isticmaalka iyo shuruudaha lagu bixinayo fasaxa isticmaalka dhulka waxaa lagu soo saarayaa xeer horta waxaa weeyaana dhulka midna wuxuu noqonayaa milkiyadduu noqonayaa milkiyad daa'im buu noqonayaa ama degaan ha ahaado ama shirkad ha ahaato wuxuu noqonayaa mid daa'im ah safaaradaha iyo shirkadaha macaadinta qodo iyo waxyaalo la mid ah ayaa maqsuud tahay muddo loo xadidi karo 99 sano wax la mid ah aan soo socdo faqradda 8aad waxaa ku qoran isticmaal caariye ah caariyada sida loo sheegay doonfuul baa loo isticmaali karaa caariye wax qaadmi kara ayaa la yiraahdaa la caariyeyn kara laakiin waxa weeyaan dadka beeraleyda ah oo dhulka tabcada way yaqaanaan laakiin qofkii raalliga ahaa Cabdulxakiim oo kala geel raaci jiray ma garan karo caariye marka doonfuul eray bixinta meeshii ugu dhow baa laga qaadanayaa taasna saasaan dhihi lahaa waxaa weeyaan meel ay ku qoran tahay cayiman heerka ku cayiman waxaan dhihi lahaa ku cayimay waxaan dhihi lahaa midda heerka cayiman midda heerku cayiman ayaa ku qoran ku cayiman in la yiraahdo qodobka 43aad ani aslaan guud ahaan waxaan u arkayaa in sidaadaba la iska dhaafo guddiga qaranka madax bannaan ee dhulka horta in la yiraahdo guddiga qaran madax bannaan ee dhulka la yiraahdo oo kaada laga dhaafo ayaa ay ku quman tahay hadduu asdaba marsan yahay laakiin ani guud ahaan waxaan qabaa qodobkaas in dalkii oo dhan aan laga dhigin guddiyo madax bannaan aan laga dhigin oo iska dhaafaan qabaa